kulanti wacan wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaanu idiin soo gudbin doonaa ciidankii lafta gareen oo la wareegay qaybo badan oo kamid ah magaalada Baydhabo balse haatan dib uga gurtay halka ay ku sugan yihiin ayaanu idiin soo gudbin doonaa khasaare xooggan ayaa jiro sida aan xogta ku helno oo dhimasho iyo dhaawac leh oo labada dhinac ah sidoo kale waxaanu idiin soo gudbin doonaa xogta ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya halka haatan ay ku sugan yihiin iyo go'aano culus oo ka soo baxay hoggaanka ku meel gaarka ah markaasi dawladda federaalka ay u magacawday koonfur galbeed Soomaaliya waxaanu idiin soo gudbin doonaa muuqaallo aad ku qaraacmi doontaan xaaladda magaalada Baydhabo maanta ka taagan meydadka ayaa meel walba waran waxaana markaasi halka lagu soo warramayaa in uu ka dhacay dagaal aad u xooggan oo ay magaalada afar jiha ay ka soo weerareen ciidamadii daacadda u ahaa lafta gareen gaadiid ayaa la kala qabsaday sidoo kale waxaa jiro askar maxaabiis ah oo labada dhinac markaasi ay kala qabsadeen guud ahaan xogihii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Baydhabo ayaana idiin soo gudbin doonaa marka koowaad soo dhawow muuqaalkan la gare sidoo kalena si shir gare si dad badan xogteena ay u gaarto wahagaag magaalada Baydhabo maanta waxa ka dhacay dagaal aad u qaraar waa barigii hore ee saaka magaalada Baydhabo waxa ay ku waabarisatay dagaal iyo hooganka rasaasta dagaalkan waxa uu u dhixiyay ciidamada daacad u ah Cabdicasiis lafta gareen iyo sidoo kale ciidamadii dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugnaa gudaha magaalada Baydhabo waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan xilli ciidamadii lafta gareen ay gaareen bartamaha magaalada dadka reer Baydhabo saaka waxa fajac ku noqotay in ciidamadii lafta gareen halka loo yaqaan afar irdoodka oo ah bartamaha magaalada in ay soo gaareen muuqaallo ay baahiyeen ciidamada ayaa waxa markaasi ay ka muuqatay in ay ku sugan yihiin qaybo badan oo kamid ah magaalada Baydhabo kadib dagaal qaraar oo halkaasi ka dhacay waxa soo rogaal celiyay ciidamadii dawladda federaalka ee laga riixay badi magaalada qaybo badan oo kamid soo rogaal celiskii dagaalkaas waxa uu keenay in ay dib u gurtaan ciidamadii markaasi taageersanaa lafta gareen isla markaana ay dib uga baxeen magaalada waxay ku laabteen fariisimihii markii hore ay duulaanka markaasi ka soo qaadeen waxaan xogta ku helnaa in labada dhinac gaadiid dagaal ay kala qabsadeen sidoo kalena maxaabiis la kala qabtay dhimasho badan iyo dhaawac badan oo labada dhinacna ay markaasi jiraan saraakiil u hadashay taliska ciidanka xoogga dalka Baydhabo ku sugan waxa ay sheegeen in ay jabiyeen isla markaana jab xooggan ay gaarsiiyeen ciidamadii weerarka soo qaaday markaasi taageersanaa lafta gareen waa ciidamadii daraawiishta ee koonfur galbeed ee Soomaaliya haddaba ujeedka muxuu ahaa Cabdicasiis lafta gareen waqti xaadirkan maanta uu ugu soo beegay waliba xilli subax ay tahay oo xilli aroor hore ay tahay dadka ay hurdaan badi sababta uu ugu soo beegay weerarkan waxa ay markaasi xogaha ay tilmaamayaan in maanta la dhaarin lahaa golaha wakiilada koonfur galbeed ee dhawaan la doortay arrintaas ayuu markaa uga gol lahaa in uu ku carqaladeeyo isla markaana uu kaga hortago weerarkan mana noqon doono sida xogaha markaasi ay tilmaamayaan isla markaana ay saadaalinayaan khubarada dhinaca amniga kii ugu dambeeyay lafta gareen wuxuu doonayaa ka hor doorashada 10ka May ay markaasi ay raahdeen 10ka markaasi June ay qorsheysay dawladda federaalka Soomaaliya ee loo dooran lahaa hoggaanka koonfur galbeed Soomaaliya in laga hortago haddaba Baydhabo waxa markan ay cagaha la gashay marxalad aad xasaasi u ah xilli ay ka dhacayeen maalmihii la soo dhaafay iska hor imaadyo toos ah oo dhex maray ciidankii dawladda federaalka halkaasi ay geysay iyo ciidamada markaasi daacadda u ah Cabdicasiis lafta gareen xogaha waxa ay tilmaamayaan in ciidamada lafta gareen saaka weerarkan uu uga dhigan yahay guul aad u weyn sababtoo ah ciidamada markii hore dawladda magaalada ay ku sugnaayeen haddase waxa markaasi u suurta gashay in ay gudaha u galaan magaalada isla markaana waxa arrintan ay markaasi ay tusaale cad u tahay in lafta gareen uu la wareegi karo magaalada Baydhabo tan waxay u muuqataa mid tijaabo ah oo ciidanka lafta gareen ay isku dayeen in ay riixi karaan ama ay jebin karaan difaacyada markaasi hore ee magaalada laga ilaaliyo ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku sugnaayeen arrintaasi waa u suurta gashay ciidamadii dawladda federaalka gabi ahaanba difaacyadii iyo aagagii ay kaga jireen daafaha magaalada waa la jebiyay taasoo keentay in gudaha ama bartamaha magaalada la isugu tago haddaba lafta gareen markan waxa uu ka baaraan degayaa qorshihii ugu dambeeyay oo uu ku doonayo in gabi ahaanba magaalada uu markaasi kula wareego xogaha sidoo kale aynu helno waxay markaasi tilmaamayaan in shir degdega uu haatan u socdo hoggaanka ku meel gaarka ah ee markaasi koonfur galbeed Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid iyo sidoo kale laamaha ammaanka kulankan waxa looga hadlayaa sida ay ku dhacday in ciidanka lafta gareen bartamaha magaalada ay ku soo gaaraan sidoo kalena ay qarka markaasi u fuuleenba in ay la wareegaan gabi ahaanba magaalada Baydhabo haddaba kulankan waxa looga hadlayaa sidii ciidamada weerarka soo qaaday goobihii ay weerarka ka soo qaadeen
loogu weerari lahaa oo iyaga meeshooda loogu tagi lahaa aadan madoobe oo ku sugan magaalada baydhabo waxaan xogta ku haynaa in uu dalbaday ciidamo aad u xoogan oo markaasi kadib wada hadal dhexmaray oo dhanka qadka taleefanka isaga iyo madaxweyneedkiisu dhamaaday xasan sheekh maxamuud in uu ka codsaday ciidamo gurmad oo degdeg ah sababtoo ah madoobe saaka waxa ku sigtay in uu gacanta u galo ciidanka lafta gareen oo waxaan xogta ku haynaa goobaha markaasi ay ku sugnaayeen isaga iyo sidoo kale hoggaanka markaasi kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed iyo sidoo kale xubno siyaasiyiin ah goobihii ay deganaayeen in ay ku dhowaadeen ciidamada markaasi daacadda u ah kuwa cabdicasiis laftagareen ee daraawiishta koonfur galbeed ee Soomaaliya ciidamadii weerarka soo qaaday haatan waxa ay ku laabteen fariisimahooda saacadihii la soo dhaafay waxa soo gaaray ciidankaasi gurmad aad u xoogan oo ay heleen kuwaas oo markaasi si xoojiyay awoodda ciidanka markaasi laftagareen dhinaca saraakiil u hadashay afhayeenka koonfur galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale saraakiil kale waxa ay sheegeen in ay jab xoogan gaarsiiyeen ciidankii dowladda federaalka ee ku sugnaa magaalada Baydhabo waxayna sheegeen in duulaankaasi ay uga gol lahaayeen in ay la wareegaan magaalada ayna u suurta gashay waxay sheegeen in gaadiid dagaal ay la wareegeen waxayna sidoo kale sheegeen in askar badan ay markaasi kaga dileen ciidankii dowladda ee halkaasi joogay xogaha haatan aynu helayno waxa ay tilmaamayaan in laga cabsi qabo duulaan hogaal celis ah oo ciidanka laftagareen ay markaasi ku sameeyaan magaalada Baydhabo halkaas oo haatan markaasi laga dareemayo wali xiisad aad u kacsan gudaha magaalada Baydhabo haatan waxa markaasi ka socdo roondo ay sameynayaan ciidanka dowladda federaalka ee dib u soo hogaal celiyay goordhow waxa warbaahinta la hadlay taliyaha ciidanka booliiska markaasi koonfur galbeed Sadiq Doodishe waxaanu ka hadlay wixii dhacay isla markaana waxa sidoo kale uu digniin adag u diray ciidankii daraawiishta koonfur galbeed ee weerarka ku soo qaaday gudaha magaalada Baydhabo waxaanu yiri uu soo afjaray haddana waxa dib loo iyo dhaawacooda dib loo aruurinayaa waxa dareemi kartaan rag siyaasiyiin ah oo ilmahoodu aysan dalkan u joogin ayaa ilmo dad masaakiina iyo agoon soo xaabiyo ku soo qaldamaantay inay magaalada soo hor yimaadaan oo qalalaasa ka abuuraan shacabka reer koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo iyo ciidamada ammaanka iskaashanaya ayaa ka hortagay waxaan ahayn inay dad masaakiin soo dhibaan oo halkan keenaan ma aysan soo kordhin haddana magaalada ammaankeeda waa arki kartaan boqolkiiba boqol ammaanka magaaladu waa sugan yahay waana xasiloon yahay ganacsiga waa kala socdaa shaqooyinka iyo iskooladii iyo waxbarashadii iyo ganacsiga waa kala aaday magaalada amnigeedu aad u fadhiyaa kaliya waxaa nasiib darro ah nin siyaasi ah oo ilmihiisu ay maxay ahayd dalkan joogin oo aysan maxaa la yiraahdaa dalkan marxalad kasta ku jiro iyo duruufaha iyo abaarta iyo xaaladaha lagu jiro aan ogeyn oo maxay ahayd damaashaadaya in ilmaha dad masaakiin ah oo dan yar dhaleen ay soo qaldaan maanta waalidiinta ilmahooda la qalday waxaan uga digaynaa inay caruurtooda ka ilaashadaan oo ay ka celiyaan oo ay ka reebaan oo aan caruurtooda la soo qaldin oo aan wax kale oo dhibaato ah maxay ahayd magaaladan iyo deegaanada ay gobolkan loo abuurin oo loo abuurin aan ka digaynaa dhalinyarada farxadka ee xaafadaha ku jirta cadow idinkuma aha waa dalkiinni iyo deegaankiinni waa dadkiinni waa la idin qalday isi soo dhiiba cafis baa la idin fidinayaa gurmad baa la idin fidinayaa dowladda koonfur galbeed baan maxaa la yiraahdaa xaaladaha ammaanka qiimeynaysa oo gurmadkiinni cafiskiina fidinaysa laakiin qofkii hub wata ay isku dayeen amniga magaaladan qalalaasa ka abuuro gacan biraah lagu qabanaa kuwa magaalada dhexdeeda ku jira maxay ahayd maxaa la yiraahdaa ka shaqeynaya propagandada ilmaha u abuuraya ilmaha marasta adiraya ilaahay ka yaabo ilmihiina guriina ku haystaa waxba idin bartaane ilmaha yar oo saqiirka oo maxay ahayd dhalinyarada ah oo aan nolosha wanaagsan haysanin oo maxay ahayd aan waxbarashadii fiican helin oo sida ilmihiinu u nool yihiin aan u noolayn ka daaya ku shubinina dabkee ciidamada ammaanku amar buuxay u qabaan shacabka iyo ciidanku iskaashanaya maanta waa arkayseeno dhagaxa looga hortagay dad shacabka uga hortagayeen ciidamaduna sidii loogu talagalay uga hortagayeen waxaan u ballan qaadaynaa qofkii dambe ee isku dayo amniga magaalada carqaladeeyo wixii ka yimaada mas'uuliyadda boqolkiiba boqol saa qaadaya saakana meedadkooda dhaawacyadooda yaala meel kasta yaalo ilaa hadda aan guraynaa wiilasha dhalinyarada laba nibca deegaankooda dadkooda ku dhex jiraan cidna cabi ma jirto nin siyaasi oo ujeedo kale la yoodan qaldin inta hadda ay soo dhiibayso soo wacaysana waa soo dhaweynaynaa waana xareynaynaa gurmad iyo gacan maxay ahayd ayaa loo fidinayaa intii la qaldana maxay ahayd iyagana saas oo kale taa soo dhiibaynaa kuwa baadiyaha jira ee duurka jira ee maalin kasta la leeyahay soo wactamayo dhahayo waa soo baxaynaa waa soo dhaweynaynaa soo dhawaada khasaaraha maxaa noogu sheegi kartaa gaadiid dagaal iyo waxaan u jeednaa baabuur baa laga qabsaday khasaare ka weyn ma jiro inuu wiil dhalinyaro ah oo maskiin ah ay soo qaldeen been u soo sheegeen ay maxaa la yiraahdaa magaalada dhexdeeda ku dhinto oo ku dhaawacmo meedkii dhaawacyadiyaan si aan u gurna garan la'anahay oo istaalka weyn yaala oo maxay ahayd loo gurmanaya waalidiinta hadhow dhaawac iyo meedka soo raac